dhirta iyo maqashiyo dhirta ubax ku yaalo dhirta waa kuti dalka Trump ayaa daba socday qoraal ay baraha bulshada ku baahisay xildhibaan Ilhaan taasoo loo fahmay dib u nacayb xildhibaano badan oo ay isku aqal yihiin ayaa raali gelin hadalka Ilhaan waxaana ka mid ah afhayeenka aqalka Koongareeska Nancy Pelosi. Ilhaan Cumar ayaa mar dambe raaligelin ka bixisay qoraalka ay baahisay iyadoo mar kale qoraalka raaligelinta kusoo qortay barta ay ku leedahay Twitter-ka. Ilhaan ayaa sheegtay inuu nacaybku yahay wax jira iyadoo u mahadnaqday saaxiibadeeda yuhuudda ah iyo dadka ay wada shaqeeyaan oo u bidaamiyey in hadalkeedii hore uu qalad ahaa. Ilhaan Cumar ayaa la qoonsaday kadib markii ay urur ay yuhuuddu leedahay ku tilmaantay mid kharash ku bixiya taageerada Israa'iil. Madaxweyne Trump ayaa raaligelinta Ilhaan ku tilmaamay wax aan jirin sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Wuxuu sheegay in yuhuud nacaybku aanu meel ku lahayn aqalka Koongareeska Maraykanka isagoo u jeeda xildhibaan Ilhaan. Trump ayaa intaa ku daray in Ilhaan Cumar ay iska casisho jagada xildhibaannimada ama ay ka baxdo guddida arrimaha dibadda baarlamaanka oo ay xubin ka tahay. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya ayaa iyada iyo gabadha lagu magacaabo Rashida Tlaib waxay noqdeen gabdhihii ugu horreeyay ee haysta diinta Islaamka kana mid noqda aqalka hoose ee baarlamaanka Maraykanka. Qadar Haybasaab TV, Hargeysa.